munaasabad ballaaran oo ay wasaaradda beeraha Soomaaliland ku soo bandhigtay mashruuca bici ee ay bixiyeen dalka Jarmalku isla markaana uu soo mariyay banka horumarinta Jarmalka ee KfW iyo hay'adda SES ayaa ku qabsoomay deegaanka geeda beer ee degmada Arabsiyo waxa ka soo qayb galay badiba dooxyada mashruucani ka shaqeyn doono beeraleydii oo ku labisan astaanta u gaarka ah ee hawshaasi ku fulinayeen wafdiga ayaa intaanu tegin goobta ay xafladu ka qabsoomaysay waxa uu sii maray deegaanadii uu ka qabsoomay mashruucani ee biyo xidheenka lagu sameeyay iyo laagii jaxjaxyada ahaa ee biyo qabatinka loo sameeyay isla markaana gabyaka lagu xulay waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland barasaabka gobolka Gabiley barasaabka xigeenka gobolka maayarka degmada Arabsiyo maayarka degmada Allay Baday dhammaan beeraleyda deegaanada hoos yimaada mashruucani ee gobolka Gabiley ugu horay waxa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahiyay mashruucani madaxa mashruucan u qaabilsan wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay mashruucan waxa kala saxeexday labada dawladeed Soomaaliland iyo Jarmalka mashruucu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo waaweyn qaybta beeraha moosaska loo xidhayo biyaha loo joojinayo si wax soo saarku u kordho qaybta biyo goosashada oo ah dhaamamkii very interesting. On the one hand, it erodes the soil and destroys your land. inta kadib waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday degmooyinka oo mashruucani ka fulayo degmada Arabsiyo iyo degmada Allay Baday oo hore uga soo fulay in dadka deegaanka iyaga laftooda deegaankoodii lacag lagu siinayo kaga shaqeeya taasina waxay tahay in la idin sheegayo halkiina wax ku qaadanaysan nasiib ku heshay waa ciida iyo biyaha la socotaana wadankeena imaka waxa ku badan daadadka marka ay roobabka soo rogmadaan taasoo mitir cubic oo biyo ah ee u baahnaayeen beeraha ayaa toos waxay u galaan badda waxay sii qaataan ciidii nafaqada lahayd marka mashruucani saadartay waa dhaqaaleynta ciida biyaha mashruucani waa mashruuci wasaaradda beeruhu ay horkacisay inta ka faa'iideysanaysana waxa weeyaan gobolada runtii iyaguna beeraha ah runtii waxaan ku amaanayaa wasiirka horumarinta beeraha in mashruucan uu nasiib u helay in uu fulo oo waqtigiisii munaasibka ahaa uu ku beego sanqanaysa haddii marinka imika hormos ee Iran iyo Mareykanku ay isku hayaan halka dagaal ka dhaco gadad bari soo imaanaysa ma jirto oo Suudsna waa xirmaya waxa dhulkeena aynu kala soo baxno bayno hantiya waxaynu u baahannahay wasaaradda beeraha wixii ay igala qabatay inaad ilaalisaan qalbi fiican ku soo dhaweysaan beeraleyda ujeedada ugu weyn halka loo yimiday ee madax iyo majabal isku yimid wax kala ma aha waxa weeyaan danta beeraleyda waxa weeye maanta hadii beeraheeni inaynu moosas u sameysano oo xalka xidhano lacag laynagu siiyey bari hadii laynagu siin waayo miyaynu ka maqnaanay wax aad u qaaliyo oo doonaya inaynu uga faa'iidaysano ka Soomaaliland ahaan laga soo bilaabo waqti eeriyadii Hargeysa ilaa mid balan qaadanaya wax balan qaadanaya mashruucyada sidii loo fuliyay inay ku waaraan inshaada beeraley 420 layb ka fadhiyo beeraley sidoo haystaan wax carradina waxa qaaday biyo way tarayaan mashruucan uu noo joojiyay carradii 100% way isku qaasatay gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ku dheeraaday ahmiyadda mashruucani u leeyahay gobolka Gabiley iyo sida mashruucani looga soo shaqeeyay muddo aynu horumar uga gaarno dhinaca wax soo saar ama noqoto khudaar ama ha noqoto raashinka la quudanayo markaan ku soo dhawaado mashruucan wuxuu bilaabnay 9 bishii shanaad 2016 waxa guul noo bilaabmay waa inay arkaan shacbiga reer Soomaaliland waxay ugu talagaleen banka horumarinta Jarmalka ama wadanka horumarinta Jarmalku wixii ay dadkooda ka soo gooyeen contribution-ka ay bixiyeen dadkii loogu talagalay gaareen waa in la arkaa waa dhisayo deegaanka gobolka Gabiley markaas waa 5 بركلوت waxaanu gacanta ka qaadnay imika dhisnaa 8 بركلوت ba hadda dhamaaday oo saaka madaxdu soo aragtay inay biyo buuxaan dadku cabeeyaan 7 بركلوت hadda aanu bixinay 25 بركلوت waanu dhamaystiranaa mashruucu u soconaya badan la dardaarmo la yiraahdo ogaada oo ilaaliya oo ka warhay oo yaani naga dayacay macnaheedu waxa weeye waa horumar muddo dheer socdo loogu talagalay taasi marka waa dhinaca wixii la dhisay ama noqoto waxa weeyeen biyo la qabanayay ama noqoto barkadihii la sameeyay sidoo kale waxa weeyeen waxaad gacanta ku haystaan leeyahayna waa xirfad iyo aqoon bini aadamkan ku nool adduunku wax isdheer yihiin aqoon iyo xirfad bay isdheer yihiin qayb kamid ay tahay waxay meesha laga baray 4 boqol ku dhaw beeraleyda marka waa Muuse Xuseen Xasan